qaybtii afraad ee qisadii ma waxaan filayba waxay ku dhacay isagu isog yahay wuxuu sameeyay wuxuuna aad uga fikiray oo isweydiiyay armoonka qaadkaadii waxa ka soo gaaray balse iyadu reerkoodu ma aysan sheegin waxa uu ku sameeyay iyo inuu gacan u qaaday markay reerkii abaar hor taagnaayeen albaabka lagu dabiibayo gabadhooda iyagoo murugsan ayaa soo baxay dhakhtarkii isagoo wajigiisa murugo ka muuqato gabadha reerkoodii ayaa weydiiyay dhakhtarkii maxaa ku dhacay gabadheena wuxuu ku yiri aad ayaan uga xumaay gabadhiina waan badbaadin waayay oo waa ay dhimatay ee Allah u naaristo qoyskii gabadha iyo ninkiiba markay maqleen ayay oohin isku wada dareen balse isaga waxa ku soo dhacay wixii uu subaxnimada ku sameeyay iyo sidii uu la dhaqmay uuna qoomamay inkastoo oohin waxba soo elinin mar hadiiba ay geeriyootay markii uu askay dhamaaday ayuu gurigii ku soo laabtay wuxuuna u yimid qadadii oo miiska ku diyaarsan iyo warqad hoostaal una qorneyd sidatan waxay ku tiri haajigayga qaaliga ahow iga raali noqo haddii aan kaa dalbaday in aad yara maqasho ila sheekaysto ila iyaarto ina tiraahdo waan ku jecelahay oo aad farhadeyda ka fikirto haddii ay riyadeydu kula usdaatay saameynteedu sheeko filimna kula noqotay iga raali noqo saygayga qaaliga ahow waxaana jeclaan lahaa in aan mar walba laabtaada ku jiro kuna weheshado balse taa bedelkeedu haddii aad ka humaatay iga raali noqo haajigayga aan jecelahow waxaan rajaynayaa in aysan mar dambe dhayn aanan samaynin feel aad dhibsatid markuu warqadii sidaas u akhriyay ayuu miiskii alaabtii saarneyd kala tuuray isagoo qaylinaya oo leh xaaskayga aan jecelahow iga raali noqo balse waqtigaasi waa mar ay hiro iyo faldhon kala dhaceen